بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصحاب تقاليق وولالكينا عبد الرحمن علي حسن كسو دبادة channelka كابتن عاقل muuqaalkeena maanta waxaan ugu hadli doonaa taariikhda ninka aad sheekooyinkiisa wada garanaysaan ee Juxa. ugu horeyn waxaa isweydiin mudan waa kuma Juxa yuu ahaa asal ahaan. ma wuxuu ahaa shakhsi dhab ah oo noolaa qarniyadii hore mise wuxuu ahaa shakhsi khuraafaad ah oo laga alifay ama laga samaystay sheekooyin maad ah oo qosol badan. sida badankeenu aan aaminsannahay ayaa ah in Juxa uu ahaa shakhsi qiyaali ah oo aan jirin, halka qaarkeen ay aaminsan yihiin inuu ahaa qof nacas ah iyagoo u sababeynaya sheekooyinkiisa lagu qoray buugaagta. balse arinku sidaa waa ka gedisan yahay oo Juxa waxa uu ahaa shakhsi dhab ah oo caqli badan kaasoo ay xaqireen cadowgiisa. maxaa ka jira in Juxa uu ahaa taabici masax baa sheekooyinkiisa qosolka ah? qaab noocee ayay ku yimaadeen sheekooyinkii lagu been abuurtay ee nacasnimada ah? muuqaalkan taariikhiga ah waxaan kaga hadli doonaa qisada Juxaha dhabta ah, ninkii xigmadda badnaa kaasoo ay dulmiyeen dad badan. waa kuma Juxaha dhabta ah? magaciisu waa Dujayn binu Thaabit al-Yarbuuci al-Basri oo loo garan og yahay Juxa, kunyadiisuna waa Abulqusni. asal ahaan isirkiisu waxa uu ka soo jeedaa qabiilka Carbeed ee Al-Fuzaara. waxa uu dhashay kalbarkii qarnigii koowaad ee hijriyada ama sanadka markuu uu ahaa 60kii hijriyada. wuxuu ku qaatay waqtigiisa inta badan magaalada Kuufa ee dalka Ciraaq. Juxa ninkii wanaagsanaa ee caqliga badnaa, fikradda firfircoonana lahaa, kaasoo lagu been abuurtay sheekooyinka maadaysiga ah. waa ninkii firfircoonaa ee geliyey farxad qalbiyada dadkii noolaa casrigiisa, halka uu ka noqday maanta xusuusaha dadka keliya nin iska qiyaali ah. hase yeeshee taariikhda ayaa noo sheegaysa in Juxa uu ahaa shakhsi dhab ah oo leh taariikh fog oo ifaysay xilliyadii hore, balse ay xaqireen kuwa xaasidiin ah. wuxuu ahaa nin caqligiisa ku muujiya xaqa isagoo dul dhigaya xujo, balse kuwa xaasidiin ah oo hadalka dheerdheereeya ayaa u turjumi jiray qaab kale oo nacasnimo ah, iyagoo mar walba ka dhigi jiray shakhsiyadiisa tilmaam nacasnimo ah oo lagu maadaysto. maxaa ka jira in Juxa uu ahaa taabici? qutb shacraani wuxuu ku sheegay oo uu ku dhahay kutubkiisa almanhaj almudhir lilqalbi walfawaa'id in Juxa uu ahaa taabici, wuxuuna arrinkaas u daliilsaday isagoo u maraya kitaabka uu alifay Jalaalushuudi. kitaabkaasoo kulminaya sheekooyinkii loo tiiriyey Juxa, wuxuuna ugu magac daray irshaad man naxaa ilaa nabaadiri Juxa, oo uu ula jeedo tilmaamaha qofka dhinac maray sheekooyinka qosolka leh ee Juxa. halkaas oo uu ku xusay ama uu ku sheegay in Juxa hooyadii ay qaadimad u ahayd hooyada Anas binu Maalik. sida aan wada ognahayna Anas binu Maalik waxa uu ka mid ahaa kuwii ugu dambeeyey asxaabtii rasuulkeena Muxammad sallallahu calayhi wasallam. sidoo kale Ibnu Jawsi isagoo ka hadlaya Juxa wuxuu dhahay wuu wariyey intii tusinaysay caqligiisa iyo garaadkiisa. imaamu Dahawi kitaabkiisa wuxuu ku sheegay, wuxuu dhahay Cabaad binu Suhayb waxaa noo waramay ama noo sheekeeyey Abulqusni, oo uu ula jeedo Juxa, maanan arkin qof ka caqli badan. inta badan Juxa wuxuu ahaa shakhsi qalbi nadiif ah leh oo ay dadka badankii xishmeeyaan. waxaa waajib nagu ah inaan dib ugu laabano shakhsiyadaas la xaqiray oo xaqii ay lahayd laga qaaday dhammaan qarniyadii la soo dhaafay. asalka Juxa waa qof muslim ah, alla ka cabsi yaqaan. sidaa awgeed waxaa nagu waajib ah inaan dhigno boos ku habboon shakhsiyadiisa. ma ahan ila qosol, mana ahan inaan u sawirno muuqaalo kartoon ah kaasoo lagu muujinayo inuu ahaa qof nacas ah, ama aan ka soo saarno sheekooyin gaagaaban oo qosol ah, aana bedelno doorkiisa wanaagga ee bulshada. ugu dambeyn, Juxa ma uusan ahayn sida ay hadda bulshada u garanayaan oo ay ka aaminsan yihiin, balse taa beddelkeeda wuxuu ahaa qof caqli badan kuna xaliya dhibaatooyinkiisa garaadkii iyo caqliga oo la siiyey. taariikh ahaan waxaa la ogyahay in naaneysta caanka ah ee Juxa loo bixiyey dad badan isaga dabadii, waxaana ugu caansan dadkii magacaa loo bixiyey Nasruddin Qooja al-Ruumi oo loo yaqaano Juxihii Turkiga. badanaana sheekooyinka la yaqaano ama laga qoray Juxa isaga ayaa loo qaataa in uu ahaa. wuxuu ahaa macallin fiqi ah. wuxuu ku dhashay tuulo yar oo faqri ah sanadkii 605tii hijriyada. wuxuu ahaa qof dhowrsan oo alla ka cabsi yaqaan. sidoo kale gurigiisu wuxuu ahaa goob ay ku degtaan dadka musaafiriinta iyo beeralayda si ay ugu nastaan.
nasrudiin qooja oo loo bixiyey juxihii turkiga wuxuu ka mid ahaa culimmadii ugu waaweynaa culimmada xanafiyada wuxuu ahaa mid wanaagga dadka fara xumaantana ka reeba maadaama uu ahaa qof dadka kaga qosliya qaab wanaagsan oo ay kusii jirto xigmad ayaa loogu magacdaray naaneysta ah juxaha turkiga wuxuu dhintay 683 hijriyada qabrigiisuna wuxuu ku yaalaa meesha la yiraahdo aaq shahrul kubraa waxaa su'aal ah ma rumaysanayaa qof caaqil ah in labadan nin dujaym bin thaabit iyo nasrudiin qooja oo labadooduba loo yaqaano juxa oo aan taariikhdooda ka soo hadalnay inay ahaayeen kuwo muqafaliin ah oo nacso ah ama khuraafaad ah kolay jawaabtu waa maya ugu dambeyn waxaa nagu waajib ah inaan dhahno asalka juxa waa qof muslim ah ee ma ahan inaan dhahno juxihii turkiga midkii masaariga ahaa midkii kurdishka ahaa ama midkii farisiga ahaa maxaa yeelay bulsho walba waxay isku dayayaan inay isdhinac mariyaan iyagoo dhahaya juxa anaga ayuu naga mid ahaa oo bulshadeena ayuu ka soo jeeday taasna waxay faa'iido u ahayd cadowga diinta kuwaasoo ka faa'iidaystay isqabsi dhexdeena ka jiray waxaa caddeen u ah arrintaa in dujaym binu thaabit oo loo yaqaano juxa ay gadaashiis soo ifbaxeen dad badan oo sheeganaya inay ahaayeen juxa xitaa oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka oo aanba macquul ahayn in asal ahaan juxa uu halkaas ka soo jeedo taasina waxaa sabab u ah in bulshooyinka oo dhan magaciisa ay ku koobeen juxa oo keliya oo meel loo dhaafa aan lahayn waxaana ka dhalatay in mujtamac walba uu sheegto in juxa uu ahaa shakhsi ka mid ah iyaga sida ay isku khilaafayaan magacyadiisa oo ah in qolo walba ay juxa gaar u ah ay leedahay ayay sidoo kale sheekooyinkii lagu been abuurtay isku khilaafayaan haddaba daawade waa taa xaqiiqda dhabta shakhsiyaddii la xaqiray ee juxa fadlan haddii aad ka heshay fiidiyoga laag saar qaybta hoose ee commentigana noogu soo qor shakhsiga aad jeclaan lahayd inaan taariikhdiisa ka soo hadalno muuqaalka xiga intaan muuqaal ceenkan oo kale ah ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo